kulan wacan daawada jimco wanaagsan subax wanaagsan meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada hadaana kale waxa idin soo gudbinaa maxaa saakayto le ka cusub arrimaha Bollywoodka la xiriira kuwaas oo nasdhikan daawadayaashina way ka heli karaan halkaan ku taxan hadaad ka hesho warbixintan la wadaaga asxaabtaada waxaan ku bilaabi doonaa warbixinteena oo saakinta badan ku eegi doonaa Akshay Kumar ay waxa uu noqday xidig kaliya Bollywoodka kuwaas oo ku soo baxay liiska 10 xidig kuwaas oo ugu caansan ee jilayaasha qaybta ragga ah waxaa liiska wad ku soo baxay xidiga Vijay Allu Arjun iyo kuwa kale ayaa liiskani ku jira haddaba aan isla eegno 10kaas ruux ee liiskani ku jira kuwaas oo ugu caansan qaybta Hindiya waa ragga oo kaliya kuwaas oo shabakada Ormakis ay qabatay Ormakis Sarindian Lofis shabakada laha ayaa waxay soo saartaa xidigada ugu caansan 10ka ah ee kuwaas oo Hindiya maamula bisha Agoosto 2022 liiskeeda ay soo saartay waxaana ka soo muuqdeen 10 qofood ama 10 jila oo magacyadooda ah waxaa ku jiro kaliya hal xidig oo Bollywoodka ka soo jeeda kaas oo liiskani maanta lagu xusay inta kalena ama 9 kalena waa xidigada koonfurta Hindiya waxa uu sareeyay xidigan oo liiskan ku jira xidiga Vijay xidiga filmka Best actor ayaa waxa uu liiskan uu maamulaya muddo sanadaha inuu ku soo baxo liiska koowaad xitaa bishii ka horeysatan ayaa waxa uu noqday mid ku soo baxay liiskan koowaad haddaba aan isla eegno liiska kale 9 kale ee liiskan ku jira qofka labaad ee liiskan ku jira waa Barbas Bahubali actor Barbas ayaa waxa uu soo galay liiska labaad xidigan waxa sidoo kale xidigan wararka oo haysta muddo badan asagoo sidoo kale haatan lagu wado in uu soo socdaan filmo soo socda oo kamid ah Adiburush Salar iyo kuwa kale xidigan oo farqaha uu ku haysto liiska saddexaad waxa ku soo baxay xidiga Junior NTR RRR actor Junior NTR ayaa waxa uu ku soo baxay liiskan xidigan ayaa waxa uu mar labaad u xigsaday booskiisa saddexaad bishii Julayna isla booskan ayuu ku soo baxay booska saddexaad ayuu xigsaday Allu Arjun ayaa liiska afraad ku jira xidiga hadda magaca sameynaya Allu Arjun ayaa waxa uu ku jira kaalinta afraad ee booskani waxaana xidigan uu noqday mid caanimihiisa kor u soo baxday kadib markii uu sameeyay filimka Pushpa iyadoo haatan la sugayay qaybtiisii labaad liiska shanaad waxaa ku jira xidiga Yash Kannada actor iyo sidoo kale filimka xidiga KGF Yash ayaa waxa uu ku soo baxay liiskani waxaana uu daba socdaa ama uu ka hooseeya hal libac xidiga Allu Arjun taas oo noqday mid u soo dalacay qaybta afraad xidiga KGF2 ayaa waxa uu noqday mid blockbuster weyn u noqday sababtaas ayaana liiska shanaad oo xidigan u soo dalaco liiska lixaad waxaa ku jira xidiga Akshay Kumar wuxuu yahay xidig kaliya ee Bollywoodka kaas oo ku jiro liiskani marka loo sii raacin xidigani filmadiisa ugu dambeeyay waxay noqdeen kuwa falooba saasay taana wali xidigan liiskan ayuu ku jiraa liiska sidoo kale waxaa ku jira toddobaad xidiga Ramcharan RRR Star Ramcharan ayaa sidoo kale xidigan liiskan ku jira bishaan ka soo gudubna ayaa xidiga waxa uu ku jiray booska lixaad asaate haatan hal dhibac ay hoos ugu soo dhacay markaan wuxuu ku jiraa booska toddobaad booska sideed waxaa ku jira xidiga Mahesh Babu ayaa wuxuu soo hogaaminayay qulubta taageerayaashiisa muddo sanado ah waxaana xidigan haatan u diyaarsan ama u soo socda filmka budgetka weynka lagu maalgeliyay kaas oo leeyahay SS Rajamouli kaas oo liiska ugu jira wuxuu ku jira liiska sideedaad ee liiskan jilayaashan liiska sagaalaad waxaa ku jira xidiga Suuriya JPM actor Suuriya ayaa waxa uu kamid ah xidigada ugu lacagta badan ee koonfurta xidigan ayaa waxa uu ka socdaa shabakada koonfurta Hindiya waxaana xidigan oo markaan soo galay kaalinta sagaalaad waxaana u soo socda filimkiisa Suuriya 42 liiska sidoo kale ugu dambeeya 10aad waxaa ku jira xidiga Athis Kumar ayaa waxa uu ku jira liiskani qofka ugu dambeeya waxaana xidigan u soo socda filimkiisa Thunifu kaas oo laga soo bandhigay kaartiisa koowaad waxaana filimkaas lagu wadaa in dhawaan la daawado inta aynu ku soo xiriirnaa daawada saakayto warbixintana ku eegine 10ka xidig ee Bollywoodka ugu caansan markaani oo ay codeyn la sameeyay ayaa waxay ku soo baxeen in liiskani ay soo galaan hadaad ka hesho warbixintan la wadaaga asxaabtaada oo ku mahadsantiin Allahba sad muuqaaladeena u daawataan